الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayay axkaamta gebagabaysiga. wuxuu sheegay musanifku raximah ullahu tacaala gebagabaysiga qofka weyse jabsan iyo ka junubka iyo cidda la midka ah xaalad inuu xalaal yahay xaaladna inuu waajib yahay. waxaa kaloo caddeeyey shuruudda oo looga jeeda arrimaha lagama maarmaanka u ah gebagabaysiga. waxaa halkana kaga hadlayaa arkaanta gebagabaysiga iyo aadaabtiisa iyo makruuhaadkiisa iyo xaaladu xaaraan noqdo. wuxuu yihi wafarduhu gebagabaysiga furuudiisu naqlu turaabi ciidda raristeeda weeye, oo halkay taallo laga soo raro oo loo raro ilaa cudwi tayamumi xubinta loo gebagabaynayo. min wajhihi low naqal hadduu raro turaaba ciiddi min wajhi wejigiisa hadduu ka qaado oo lilyadi ilalyadi gacanta uu qaado, aw bilcagsi ama taa cagsigeeda uu sameeyo gacanta ka qaado wejiga u qaado, xal arrinkaasi waa mid bannaan oo ansaxaya. wa qasduhu gebagabaysiga faralkiisu wa qasduhu weeye ciidda inuu u qasdiyo qofka gebagabaysanaya. wa niyatu istibaaxi fardin fardi banaysigii inuu u niyoodo weeye faralka gebagabaysigu, aw isalaati ama salaad u niyoodo. wainmisaaxi lwajhi wejiga masaxmankiisa weeye, lalmanbiti timuhu halkay ka baxaan maya. walyadayni labada gacmood masaxankooda weeye, maca mirfaqin iyadoo lala qabo suxul. waratib kala horeysi almasxayni labada masax, ka wejiga la masaxayo iyo ka gacmaha la masaxayo. waxaa lan kaga waramayaa furuud tayamum oo ah umuur lagama maarmaan u ah, umuuru laabudda minha lixusuulihi. tayamumku si uu ansaxo arrimo lagama maarmaan u ah, oo haddii mid kamida la waayo gebagabaysigu aanu ansaxahayn. waxaa kowkaa naqlu turaab, ciiddu meesha ay taallo inuu ka soo xawilo oo uu ka soo qaado oo xubinta markaa loo gebagabaynayo oo usoo qaado. oo haddaanu ciidba soo qaadan, ciid xubinta dul taalle inuu ku celceliyo niyana uu raaciyo, kaasi gebagabaysi noqon maayo oo ansixi maayo, waayo rukunkii naqliga ahaa ayaa ka maqan. haddaba halkee inuu ka soo naqliya ayaa shardi. meeshuu ka soo naqliya meeshay doonaysa ha noqoto. dhul buu ka soo naqlin karaa, gidaar ciiddu dul taallu ka soo qaadi karaa, xataa jidhkiisa meel ka mid oo ciiddu ay saarantay buu ka qaadi karaa, xataa xubnaha gebagabaysiguu ka qaadan karaa. laakiin xubinta ciidda dul taalla ayuun baanu ku masixi karin intuu niyo raaciyo. walihaada wuxuu yihi hadduu ciidda wejigiisa ka qaado markuu wejiga masaxay kadib, oo gacanta uu qaado ama gacanta uu ka qaado wejiga u qaado, arrintaasi waa arrin bannaan, gebagabaysiguna ugu ansaxayo. wa farduhu buu ihi gebagabaysiga faralkiisu naqlu turaabi, ciid qaadisteed weeye, meeshay taalo laga qaado xubinta loo qaado. low naqal hadduu qaado buu ihi aturaaba ciiddii min wejhi wejigiisa uu ka qaado lilyadi ilalyadi gacanta u qaado, aw bilcagsi ama taa cagsigeeda uu sameeyo oo gacanta uu ka qaado wejiga u qaado, xalla ijaaza arrinkaasi waa mid bannaan wa saxa. wa qasduhu ay wa farduhu gebagabaysiga rukunkiisu qasduhu, qofka gebagabaysana waa inuu ciidda u qastiyo oo uu soo raro u soo qaado xubinta la masaxayo.
laakiin haddii ciiddu iyadoo ay soo doonato tusaalean wuxuu istaagay halkay dabayshu kusoo dhacaysay markaasaa ciiddii waxay ku dhacday wejigiisa ciiddii oo markaa wejigii saaran unbuu ku celceliyey kuma filla taasi waayo qasdigiibaa maqan tayamamuu saciidan ayiba tayamum macnaheedu waa u qastiye weeye oo idinku doonta wa niyatu istibaaxati fardin aw isalaa arkaanta gebagabaysiga waxaa ka mid a anniya waayo waa cibaado niyo la-aan ansixi maayo inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli imriin maa nawa haddaba gebagabaysigu sida aynu sheegnay dee mubiix bay ka dhigayaan mid salaadii iyo waxyaabaha kale ee tahaarada u baahan lagu banaysto tahaaratu daruurana waa yidhaahdaan oo kama dhigayaan mid mutahiro qofka daahirinaya masaladaana darsigii xalay baynu kaga hadalna muxuu haddaba niyeysanayaa uma niyeysan karo gebagabaysiga طahaaro uma niyeysan karo niyatu rafci اxadaث kuma fila ee xadadkii rafcin maayo bay leeyihin fardu tayamumna uma niyeysan karo gebagabaysi faralah ee muxuu niyeysanaya istibaaxatu fardin hadduu faral u gebagabaysanayo faral inuu ku banaysto gebagabaysigan buu niyeysanaya ama wuxuu niyeysanayaa istibaaxata salaa salaad inuu ku banaysto gebagabaysigan oo haddii markaa uu salaadun inuu ku banaysto uu niyoodo salaad sunna ayuunbuu ku tukan karaa oo taa uu sida gaarkaa ugu niyeystay hadduu naafila mucayana waxa weeyaan uu niyeystay ama salaatu janaaza iyada iyo nawaafisha kaleba waa ku samayn karaa laakiin farallada kuma samayn karo niyaduna waa inay la xidhiidhaa bay leeyihiin naqliga ama soo qaadista ciidda way ciidda soo qaadisteedii baa rukuna laakiin waa rukun hayru maqsuuda masxiguna waa rukunka maqsuudka ah oo niyadu waa inay joogto oo ay xaadir ahaato ilaa wejiga wax ka mida u masaxayo intaasoo dhan waa in niyadu xidhiidhsanaato naqliga iyo soo qaadista ayuu niyada la xidhiidhinaya niyaduna waa inay xaadir ahaato ilaa wejiga wax ka mida u masaxayo waayo naqligu waa rukun hayru maqsuuda ayuu tayamumka gebagabaysiga u yihi masxul wejina waa rukunka maqsuudkaa weyi ee u horeeya marka niyatu istibaaxati salaa ayuu niyeysanayaa bu uri istibaaxati fardin aw istibaaxati salaa ama dee wax kale oo u baahan tahaaro u baahan ayuu istibaaxadiisa iyo banaysigiisa niyeysanaya marka faral inuu hadduu u gebagabaysto faral u niyeysto sunayaasha oo dhan waa ku gudan karaa fardu kifaaya laftiisu fardulcaynka waa raacaya salaat ljanaasa waa ku gudan karaa gebagabaysigii salaad faral fardu cayna uu niyeystay haddii uu u niyeysto sunnana faral kuma tukan karo gebagabaysiga sunayaasha kale ayuu waxa weeyaan ku gudan karaa marka sunayaashu faral bay raaci karaan laakiin faral sunne ma raaci karo waxay isaguna rukuna walmisaaxu lwajhi wejigu inuu masaxmo wejigana inta daahirkaa baa looga jeedaa famsaxuu biwujuuhikum lalmanbiti timu alay ka baxaan maya waajib ma aha ciidda in la gaadhsiiyo halka ay timuhu ka baxaan xataa hadday khafiif yihiin timuhu nooc intay doonayaan ba hala ekaadaan ee gebagabaysiga dhexdiisa dushun baa laga masaxaya xataa hadday khafiif yihiin ciidda jidhka ka hooseeya in la gaadhsiiyaa waajib maaha waxyaabaha weysada iyo gebagabaysigu ay u kala duwan yihin oo deetan ciid baa la isticmaalaya weysadana biyaa la isticmaalaya
walyadayni labada gacmood inay masaxmaan baa rukun ah maca mirfaqin iyadoo suxula lala qabo misaaxu lyadayni maca almirfaqi sii weysadoo kale marka shaaficiyadu waxay qabaan ilaa suxullada in la masaxayo xadiidka kusoo aroreysa waa daciif xadiidka camaar ee saxiixiina wuxuu tilmaamayaa un kafeynka in la masaxaa inay ku filan tahay waratib ilmasxayn arkaanta gebagabaysiga waxaa ka mid a atartiib waxaa la tartiibinayaana naqliga maa soo qaadista ciidda gacmaha loo hor qaadi karaa oo qaadista wejiga loo qaadaya la dambaysiin karaa laakiin waxaa la tartiibinaya waa masixitaanka wejiga waa in la hormasaxo oo gacmuhu ay dambeeyaan almasxayn masxu lwajhi wa masxu lyadayn buu uga jeedaa waa in wejiga lagu bilaabo kadibna gacmaha lagu xigsiiyo hadduu gacmaha horeysiiyo o wejiga uu dambaysiiyo wejiga masixitaankiisu unbaa xaasilo ah oo masixitaankii gacmaha waa inuu ku celiyo haddaanu ku celina gebagabaysigaasi u ansixi maayo marka arkaanta gebagabaysiga ee halkan inoogu sheegay waa 6 naqlu turaab alqasdu alniya inmisaaxu lwajh inmisaaxu lyadayn altartiib waa 6daas halkanna wuxuu kaga hadlayaa sunayaasha gebagabaysiga wa sunna waxaa la suneeyey buu ihi tafriiqun faraha in la kala kaxeeyo marka uu gacanta dhulka ku dhufanayo si uu ciidda markaa ugu soo qaado farihiisa waa inaanu isku dhajina saa u kala kaxeeyo darbada awalkeeda waa in yubasmila waa inuu bismi illah yidhaahdo gebagabaysiga awalkiisa sidii weysada loo qiyaas qaadanaya waqadim ilyumna haddaad tahay ka gebagabaysanaya markaad gacmaha masaxayso ta midig horeysi wakhallil faraha isdhex geli waa sunne si faraha dhexdooda ciiddu ay u gaadho oo haddii marka hore loo badinayo inay gaadhay ayaa takhliilku uu sunno noqonaya haddii kale oo aanay ciiddu si kale ku gaadhayn takhliilku faral buu noqonaya walwila wasunna waxaa la sunneeya alwila isku xigsiin la isku xigsiiyo labada masax masixitaanka wejiga iyo ka gacmaha oan loo dhaxaysiinin wakti dheer saasoo kale gebagabaysiga iyo salaada in la isku xigsiiyo waayo cid waajibisay baa jirta ciddaa markaa khilaafkooda ayaa laga fogaanaya hadduu qofku salasulbowl yahayna muwaalaadku waajib bay noqonaysaa sidii baabulwuduu markii la joogay baa waajibka u ahayd qofkii daa'imulxadadka waxa weysada jabiyaa si joogtaa uga socday wanascu khaatimin wasunna waxaa la sunneeyey buu ihi nascu khaatimin baa la sunneeyey fargal bixintii liulaa ta koobaad ay fi luulaa darbada koobaad ee tadribu ee aada dhulka ku dhufanayso macanaa darbada koobaad inaad fargal haddaad gacanta ku xidhan tahay faraha ku xidhan tahay ad iska saartaa waa sunna wey waxaana loo sunneeyey si wejiga oo dhan gacanta oo dhan loogu wada masaxo ama lithani darbatin darbada labaad miyaa fayajibu waa waajibaya ay nascu khaatimin fargal bixintii darbada labaad ee gacmaha loo soo qaadayo fargalkii in la bixiyo waa waajib waayo dee gacantii meel kamid u qarinaya gacantana in la wada masaxo ayaa waajiba in la dhaqdhaqaajiyaana waxba tari mayso taasi weysadee wax ka tari karta oo biyuhu fargalka iyo jidhka waa kala dhex geli karaan haddii la dhaqaajiyo laakiin ciiddu ma kala dhex gelayso walihaada haddii gacanta uu fargal ku jiro darbada labaad in fargalka laga bixiyo waa waajib si ay gacantu u wada masaxanto marka ma cinda darbiba ayaa khaatamka bixintiisu ay waajibaysa maya waa cinda almasx oo marka dhulka lagu dhufanaya doonaya iskaga jiraba laakiin marka masixitaanka gacmaha la sameynayo si ay gacantu u wada masaxanto markaasay waajib tahay marka fayajibu ay cinda almasxi baad ku qaydanaysa maaha cinda darbi maaha halkana wuxuu kaga hadlayaa aadaabtii gebagabaysiga wuxuu yihi aadaabu gebagabaysiga aadaabtiisu aadaabta waxaa looga jeedaa asunanu gayru lmuakada sunayaasha aan la adkayn
an yastaqbila waa inuu ujeesto qofka gebagabaysanaya alqiblata kacbada xaggeeda waa inuu ujeesto masaladaasi weysadana waynu ku soo marray daliilo ma laha baynu nidhi makruuhu gebagabaysiga waxaa loo karaahiyeystay istucmila an yustacmala in la isticmaalo aturaabu ciiddi alkathiira ee faraha badnayd ama aturbu ciid baa loo karaahiyeystay ciiddii alkathiira ee faraha badnayd oo istucmila oo la isticmaalay oo ciid badan intuu gacmaha dhulka ku ruquuso inuu iyagoo wada boodha wejiga mariyo gacmahana uu mariyo waa makruuh lannu ciidda dee xubinta lagu masaxaya lagu maydhi maaye waa lagu masaxaya haddii ciid badan markaa loo qaadana qofka foolxumay u keenaysa oo qof dee waalan oo kale ayuu noqonayaa oo ciid dhex galay walihaada sunayaashiisa waxaa ka mida ciidda in la khafiifiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha dhula ku dhuftay boodhka waa ka afuufay xaraamuhu buu ihi kaay xaaraan tahay ataymubi in lagu gebagabaystaa turaabu masjidin weeye ama xaraamuhu gebagabaysiga kiisa xaaraan tahay turaabu masjidin atayamum waa gebagabaysiga bituraabi masjidin masaajid ciiddii lagu gebagabaysto wamaa shaygii lagu gebagabaysto xurima la xaaraantimeeyey fi sharci sharciga dhexdiisa alisticmaalu xurima la xaaraantimeeyey alisticmaalu isticmaal minhu isaga wax laga isticmaalo fi sharci sharciga dhexdiisa la xaaraantimeeyey marka gebagabaysiga wuxuu xaaraan noqonayaa waxa lagu gebagabaysan in lagu gebagabaystaa aanay banaanayn haddii waxa lagu gebagabaysanaya uu yahay masaajid ciiddi ciiddana waxaa loo jeedaa ciidda dhulka la waqfiyey ka mid a ee waqfiga ku jirta ciid kale oo markaa dee la keenay ama dabayshu ay ku soo riday maaha masaajidadan imika dee ciidima taala marka hadday dabayshu ciid keento dee gidaarada iyo ciid ay dul dhigto waad iskaga gebagabaysan karta way ciiddaasi tii la waqfiyey ka mid maaha ciidda waqafka ka mida ayaan lagu gebagabaysan karin waa in lagu gebagabaysto looma waqfin salaadiiyo wixii lamida ayaa loo waqfiyey waqfigana wixii qofkii waqfiyey uula qastiyey u niyeystay lama dhaafiyo waxaa kaloo xaaraana in lagu gebagabaysto waxa ay shareecadu isticmaalkiisa xaaraantimaysay sida ciiddii markaa ciddii lahayd laga dhacay ama ciddii lahayd laga xaday waa xaaraan in lagu gebagabaysta laakiin gebagabaysigaasi wuu ansaxayaa waayo xaaraannimadaasi arrin ka baxsan gebagabaysiga ayay u timi xaraamuhu buu ihi kaay xaaraanta in lagu gebagabaystaa turaabu masjidin weeye masaajid ciiddii wamaa kii weeyaan xurima la xaaraantimeeyey alisticmaalu isticmaal minhu isaga wax laga isticmaalo fi sharci sharciga dhexdiisa la xaaraantimeeyey kalmaqsuubi walmasruuqi halkana wuxuu kaga hadlaya waxyaabaha gebagabaysiga buriya mubdilaadkiisa mubdiluhu waxa buriye gebagabaysiga maa kii weeyaan abdala buriya alwuduu'a weysada wa kulu maa yubdilu lwuduu'a yubdilu tayamuma wax kastoo weysada buriyaa gebagabaysigana waa buriyaa waayo gebagabaysigu bedel buu ka yahay weysada bedelkuna ka uu bedela ka yahay buu xukunkiisa qaata fi lmadhabna isagaaba ka daciifsanba wahuwa adcafu min alwuduu maca tawahumi ilmaayi biyo tuhmidood la tuhmo iyadoo lala qabo bilaa shayin iyadoo shay aanu jirin markaa biyaha la tuhmay macnaa jiristooda la tuhmay bilaa shayin shay iyadoo aanu jirin manaca ee min isticmaalihi biyaha isticmaalkooda diidaya iyadoo aanu jirin qabla ibtidaa'i salaati salaada intaan la bilaabin oon la gelin tuhmidda biyo la tuhmo ama fiiha ama idaa tawahama hadduu tawahumo miyaa ay almaa wujuud almaa
fiiha salaada dhexda u tayaqanaba ama uu yaqiinsadaba famanka waajib ay ku tahay calayhi isaga yaqdiha salaada inuu qalleeyo salaada uu gebagabaysi ku tukaday abdil buri gebagabaysigiisa xukum inuu baatil wa ilaa salaada uu gebagabaysiga ku tukanayo qallaheedu haddaanu waajib ku ahayna laa tubtil tayamumahu gebagabaysigiisa ha burin walaa salaatahu salaadiisana ha burin walaakin hase yeeshee afdalu sida afdalkaa ibطaaluhaa salaada goynteeda weeye kay tufcala si loo sameeyo salaadii bilwudu kay tufcala si loo tukado salaadii bilwudu wayse si loogu tukado wa riddatun diinka baxna tubtilu way burinaysaa atayamuma gebagabaysiga la tawadi waysadii burin mayso jadid cusboonaysi tayamuman gebagabaysi likulli fardin faral kasta u cusboonaysi halkan wuxuu ka hadlay waxyaabaa gebagabaysiga buriya kow waxa kaa wax kasta oo weysada buriya mubtiluhu waxa buriya ma abtala waxa buriya alwudua weysada intii weysada burinaysay waxa raacay oo gebagabaysiga burinaya tawahum wujuud ilmaa tawahumku dannigana waa ka daciifsan yihi inay biyo jiraan waa inuu tuhmo waa qofkii biyo la-aan u gebagabaysanaya baa laga hadlaya bimacnaa an yujawiza waa inay agtiisa suurtowdo in biyo la helo oo wax markaa tuhunkaa ku dhaliya ayaa dhacay sida inuu arkay dhalanteed ama dhalan habaabis oo biyo markaa uu qaatay amaba se dad soo socda oo safara ayuu arkay markaasaa waxaa uu tawahumo uu tuhmay in biyo qoladaa laga heli karo iyo waxyaabaha lamidka ah markaa gebagabaysigiisi waa burayaa waxaa se shardi u ah arrintaas shuruud bay leedahayoo waxaa shardi u ah wax biyaha wujuudkooda iyo jiristooda uu tuhmay isticmaalkooda ka mancinaya inaanu jirin bilaa shayin manc iyadoo aanu jirin shay biyaha uu tuhmay haddii la helo isticmaalkooda ka mancinaya u diidaya oo maxaa ka mancin kara ninkan gebagabaystay marka horeba haraad buu markaa u dhimanayay ama xayawaan muxtarama ayaa haraadanaa oo la joogay oo markaa biyaha cabitaan ugu baahan biyaha wujuudkooda uu tuhmay gebagabaysigii kaga jabi maayo waayo maanic baa jooga isticmaalkooda u diidaya waa maanic sharciga kaasi maanic xisiyana waa la heli karaayo dee in biyaha haddii uu doonto uu naftiisa u baqayo maalkiisa u baqayo ama cirdigiisa u baqayo oo dee bahal baaba ka sokeeya ama cadowbaa biyihii ka sokeeya meeshii biyaha uu ku tuhmay tawahumulmaa goormuu gebagabaysiga ka jebinayaa intaanu salaada gelin haddii uu dhaco an yatawahama qabla an yashraca fi salaa waayo markaasay waajib ku tahay dee inuu biyo raadiyo intaanu salaada gelin marka waa shardi labaad iyaduna shardigii koowaad muxuu ahaa maanicin aanu jirin bilaa shayin manac shardiga labaadna waa inuu tawahumku dhaco qabla shuruuci fi salaati intaanu salaada gelin waaya haddii isagoo salaada gale haddaba tawahumku dhaco ka warrama salaadii ma jaraya oo biyaha wujuudkooda uu fishay ma ku weysaysanaya tawahum qura maa idaa tayaqanaba biyo wujuudkood buu yaqiinsaday isagoo gebagabaystay oo salaadii galay salaaddaa ma jaraya mise waa iska wadanaya waxaa la eegayaa salaadan uu gebagabaysiga ku tukanaya noocay tahay ma salaad hadhow inuu qallaya ay waajib ku tahayba marka uu biyo helo mise waa salaad hadduu biyo helo xataa qallaheedu aanu waajib ku ahayn oo gebagabaysi hadduu ku tukado sidaa kaga dhacaysa hadday tahay salaad kolleyba qallaheedu waajib ku yahay gebagabaysigiisu wuu burayaa wuu jarayaa salaadaas
oo waa biyuu ku weysaysanayaa kadibna wuu tukanayaa waa inuu gebagabaysi ku tukadaa faa'iido iyo macno ay leedahay ma jirto mar haddii qallaheedii laga rabo biyana markaa uu yaqiinsaday in la helayo haddii salaadu ay tahay salaad markuu gebagabaysi ku tukado qallaheedu aan waajib ku ahayn oo isagoo galay biyo uu yaqiinsaday in la helayo jari maayo uu iska wadanaya yacni waajib kuma inuu jaro gebagabaysigiisi buri maayo salaadiisuna buri mayso laakiin waxaa afdala buu yidhi in iyada lafteeda gebagabaysigaba mid kaga dhacaysaba ha noqoto qalla aanu kaga waajibayne inuu gooyo ayaa afdala si biyaha uu yaqiinsaday uu ugu tukado marka waxa isweydiin leh salaada gebagabaysi lagu tukaday goormuu qallaheedu waajiba goormaasi aanu qallaheedu waajibin haddii cudurdaar naadira awgii loo gebagabaysto gebagabaysigaa salaada lagu tukado qallaheeda waajiba haddii cudurdaar aan naadir ahayn oo in badan dhaco la arko daraaddii loo gebagabaystana gebagabaysigaa salaada lagu tukado qallaheeda waajibma oo tusaale ahaan meel ay biyo u qaalib ahaayeen ayuu biyo ka waaye markaasuu gebagabaystay salaada uu gebagabaysigaa ku tukado uu qallaynaya isagoo salaadaa ku jira haddaba hadduu biyo yaqiinsado waa inuu salaadaa jaro biyaha uu ku weysaysto oo gebagabaysiga iyo salaaduba way burayaan waa yahay meel aanay biyo qaalib u ahayn oo dhul oomana iska ah isagoo jooga ayuu biyo waayey markaasuu gebagabaystay oo cudurdaara naadir ahayn isagoo safara tusaale ahaan oo marayana meel aanay biyo qaalib u ahayn gebagabaysigaa salaada uu ku tukado qallaheedu waajib kuma aha mar haddaanu qallaheedu waajib ku ahayna salaada isagoo ku jira hadduu biyo helo roobba uu ku doo daadku hoos yaaco salaadiisa ka bixi maayo waayo dee maqsuudkii buu gudagalay hadda oo wasiiladii oo dee weysadaa uu dhaafay laakiin iyada lafteeda waxaa afdala buu leeyahay inuu gooyo si uu weyse ugu tukado waayo cid baa jirta waajibinaysa salaada in laga baxo oo le waa xaaraan isagoo biyo haysta salaadu gebagabaysi ku galay inuu sii wado marka ciddaa khilaafkooda laga fogaanaya walihaada buu uhi walaakin afdalu waxaa fadli badan ibtaaluha salaada jaristeeda kay bilwuduui tufcalu markaa dee rafcada waxaa keensada un qaafiyada kaydaa nasbinaysa ficilka oo kay tufcala bilwuduui wey kayd iyo ficilka haddii wax lagu kala fasliyo camalkeedu ma buro waaye waridatu ridda tubtilu burisa gebagabaysiga oo isagoo gebagabaystay buu diinta ka baxay kadib buu diinta kusoo noqday gebagabaysigii ma ku tukan karaa maya riddadii baa ka burinaysa waayo gebagabaysigu waa ibaaxa weeye de waa mubiix waana rukso walaa ibaaxata fi riddati riddo dhexdeedna qofka wax loo ibaaxaynaya ma jirto wax allaale wixii rukhas ahaa qofku riddada wuu ku waaya la tawadi weysada se riddadu ma buriso si kalena u dhigaana waxay dhahdaan weysadu waa tahaara qawiya tayamumkuna waa tahaara daciifa saa awgeed bay riddadu gebagabaysiga u burinaysa weysadana aanay u burinahayn mubtiluhu gebagabaysiga waxaa buriyaa maa shayga wayaan abtala buriya alwudua weysada maca tawahumi ilmaayi biyo tuhmidood iyadoo lala qabo bilaa shayin iyadoo aanu shay jirin la tuhmay manaca biyaha isticmaalkooda diidaya qabla ibtidaai salaada intaan la gelin ka hor la tuhmo ama idaa tayaqana nadmiga daahirkiisu waxa weyaan ama idaa tawahama lakin sida saxdi waxa weeye ama idaa tayaqana hadduu yaqiinsado miyaa wujuudalmaai biyaha jiristooda fiiha salaada dhexeeda uu ku yaqiinsado famanka calayhi waajibun ay waajibta caleyhi dushiisa yaqdiha salaada inuu qaleeyo abtil gebagabaysigiisa iyo salaadiisaba buri
وإلا صلاة إنه قال يا داني واجب كوا هاينا لا تبطل برين صلاة دي سيجا بجبي سجيس وتصلين عذر دار النادر عين بوجا بجبي صح حنون وكلا صلاة جبي سيجا كنت كذا إنه قال يا واجب كوا marka isoo ku dhex jira haduu biyo yaqiinsado mar hadaanu qaleedu waajib ku ahayn waa iska sii wadanaya waa dhameystiraya walakin asayasha afdalu sida afdalka ah ibtaalu ajristeeda way kay tufcala si loo tukado salaadi bil wudu'i waysa si loogu tukado wariddatun diinka bax tubtil way burinaysaa tayammum la tawadi waysadii burin mayso jadid cusboonaysi buri tayammum gabagabaysi likulli fardin faral kasta oo cusboonaysi oo fardu cayn baa loo jeedaa oo hadii uu fardu cayn u gabagabaystay oo fardu caynkii gabagabada uu ku tukaday fardu kifaayana waa raacin karaa salaatul janaasada oo kale marka wuxuu leeyahay gabagabaysigu waa tahaara daciifa mar haday tahay tahaara daciifa laba faral laguma wada gudan karo laba salaado farala ama salaad farala iyo dawaaf farala ama laba dawaaf farala khutbatul jumu'a iyo salaatul jumu'a hatta si mu'tamadka laguma wada gudan karo haduu khutbada u gabagabaystay lafteeda tahaara shardi waay salaada gabagabaysiga kuma tukan karo salaada jumu'a mar kale waa inuu salaada jumu'a u gabagabaysto marka tan waxay ku binaysan tahay gabagabaysigu inaanu mutahhir ahayn ee mubiix uu yahay oo tahaaratu daruura uu yahay laakiin haddaynu raahno qowlka raajixa ah waa gabagabaysigu inuu weysada la mid yahay inta salaadooda uu doono ayuu ku tukan karaa inta aanu jabin oo aanu burin halka wuxuu kaga hadlayaa axkaamta jabiirada kabniinka iyo waxyaabaha nabarada la dul dhigo axkaamta ay leeyihiin yamsaxu waa masaxayaa buuri duu jabiiratin kabniin mid u saaxiibi bilmaai biyu ay calayha dusheedu masaxaya jabiirada bilmaai biyu ku masaxaya maca tayamumin gabagabaysina iyadoo lala qabo walam yucid salaadaana soo celin maayo mahmaa wadaca waa haddii uu dhigay jabiirada calaa tahaaratin tahaaro dusheeda hadduu dhigay walaakin hase yeeshee manka jacala yeela lusuuqan wax nabarka lagu dhajiyo calaa cud walaakin hase yeeshee yuciidu waxa salaaddii soo celinaya manka jacala yeela lusuuqan wax nabarka la dul dhigo calaa cudwi tayamumin gabagabaysi xubintii marka halkan wuxuu kaga hadlaya jabiiradii qofka haddii uu jabo dabeetana jabniinkii kab la dul dhigo kabniin amaba se nabar intuu ku dhaco nabarkii la daboolo oo baandhays iyo wax lagu duubo amaba se dawo lagu dhamooqo xubinta biyaha ka celinaysa muxuu xukunku noqonaya horta يغسل الصحيح انت بد قبته ومايريا يدا ورسول كحول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا ناري ان امره انت ودان كلا كاله الى ان وحي فاتقوا الله ما استطعتم هذا غعنتا كجبتو كبنين لا دول دغو xubnihii weyse inta bad qabto horta waa inaad maydho taas waa arrinta koobaad jabiirada ama kabniinka ama waxa nabarka la dul dhigayna dusheedu masaxaya waliba masxi uu ku caam yeelayo biyaha wada gaarsiinayo waa haddii dee jabiiradu ay saarantahay xubnihii weysada haddii meel kale dee uu ka jabay oo kabniinka la saaray taa laga hadli maayo jabiirada markaa muxuu u masaxayaa wuxuu u masaxayaa inta bad qabta ee qarinteeda uu kabniinku keensaday ayaa masxigani uu u dhacaya waa saddexee haddana waa gebagabaysanaya oo muxuu u gebagabaysanayaa
gabagabaysigu isaguna wuxuu bedel ka yahay nabarku inta uu ku yaal ama jabniinku meedhisteedii uu bedel ka yahay intii bad qabtay wuu maydhay intii bad qabtay laakiin kabniinku wuu daboolay oo dee isqabsashadu ay keensatay kabniinkana la duldhigay iyadoo aan tusaale ahaan daahir ahayn iyadoo la maydhin la duldhigay taana masxigaa meesheedii gelaya gebagabaysiguna meesha nabarku uu ku yaal lafteeda ayuu weysadii bedel uga yihi saddexaas israaciiliya shaaficiyadu saasay qabaan kadalika alxanaabila qolooyinka markaa la idhaahdo maalikiyada iyo xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin waar inta bad qabtana wuu maydhayaa inta kalena wuu gebagabaysanaya khalaas wax masxi la idhahdaa ma jira bay leeyihin masxigan iyagu waxay uga qiyaas qaadanayaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo almasxu cala alkhufeynki uga qiyaas qaadanayaan oo haddii qofka loo rukseeyey khufka dushiisii inuu masaxo iyadoo uu iskaba bixin karo uu maydhi karo xubinta ka hooseysa min baabi alawlaa markay xubintii bugto ama ay jaban tahay ee wax lagu daboolay waxa inuu masaxaana inay u banaanaato xadiidkii thawbaanna waa u daliil amarna rasuulu llahi an namsaxa cala alcasaa'ibi watasaakiin wixii markaa gacmaha iyo lugaha iyo lagu duubo inaanu masaxnu rasuulku wixii lugaha lagu duubo inaanu masaxnu rasuulkuna amray ayib qolooyinka kale waxay leeyihiin maya looma baano masxi waxaa loo baahanya inta bad qabta in la maydho inta kalena gebagabaysigaa maydhisteedii bedel ka noqonaya saasay leeyihin shaaficiya iyo xanaabilana waxay leeyihin gebagabaysigu wuxuu bedel ka noqonayaa inta bugta ee daboolan masixitaankuna wuxuu bedel ka noqonayaa inta waxa weeyaan bad qabta ee kabniinka ama daboolka la dul dhigay iyadoo aan la daahirin marka hadda la soco shaaficiyada laftoodu masxiga mar aanay waajibinayn baa jirta masxi waajibin maayaan haddii kabniinka ama baandhaysku meeshii jabnayd ama nabarka lahayd inuu ku kooban yahi oo in bad qabta aanu daboolin soo waadix maa taas oo sabab dee loo masaxaa ma jirto oo intii bad qabtayna waa la maydhay meeshii nabarka lahaydna gebagabaysigaa meedhistiisii bedelka ah in bad qabto oo daboolani maba jirtaba waxa iyaduna lamid a oo shaaficiyada laftoodu aanay masixitaan waajibinahayn haddii inta bad qabta kabniinka ama baandhaysku uu daboolay intaan la duldhigin la daahiriyo dahaaradii ay qabto iyadoo aba dee iska daahirsantayba markaa sabab loo masaxaa ma jirto cala aljabiira xadiidka ku soo arooray ee sidan sheegaya isagu waa daciifa meel baad iskaga tiirin qiyaaska ay jabiirada uga qiyaas qaateen almasxu cala alkhufeynna sax ma ah sida uhaa shekh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala sheekh ibnu cuthaymiinna sharxulmumtica uu ku caddeeyo farqiyo badan baa u dhaxeeya khufka iyo jabiirada kabniinka farqiyada waxaa ka mid ah almasxu cala aljabiira waa waajib almasxu cala alkhufna waa jaa-is waa mid banaan waa ruksa un khufka waxaa la masaxaya un hadduu lug ku jiro haddaad gacmaha gashato lama masaxayo jabiiraduna meel kastoo xubnaha weysada ka mida way ku xidhantay baa la masaxaya taana waa ku kala duwan yihin khufku markaa shuruud buu leeyahy waa in maxalulgasligii xubintii ay meedhisteedu faralka ahayd waa in wada qariyo jabiirada se taa looma shardiyo alaa gacantaadii in ka midun inay saarantay waanay wada saarayn almasxu cala alkhufeyn tawqiit buu leeyahy oo muqiimku yowman waleyla u masixi karaa musaafirkuna alaaata ayaam layaaliyahun almasxu cala aljabiirina tawqiit ma leh
dee qofka sanad ay ku xidhan tahay marka in looga qiyaas qaato oo sidaa soo socota la yidhaahdo waxaa shardi u ah almasxu cala aljabiira oo salaaddii qofka ay ka ridaysaa haddii xubintaasoo daahira u xidho ama lagu xidho qiyaaskaasi sax maaha waa ka yidhi walam yucid ku soo celin maayo salaaddii mahmaa wadaca hadduu dhigo kabniinka ama waxa nabarka la dul saarayo calaa tahaaratin tahaaro iyadoo ku sugan uu dhigo markaa goormaanu ku soo celinahayn waa haddii xubinta oo daahira lagu xidho kabniinka lagu xidho waxaa kaloo shardiga xubinta inteeda bad qabta inaanay ka qarin oonay ka qaadan inta isqabsashada looga baahan yahay in ka badan waxaa kaloo shardiga xubintu inaanay ka midnahayn xubnihii gebagabaysiga oo wejigii iyo gacmihii marka la gebagabaysana la masaxay aanay ka mid ahayn saddexdaa shardi haddii la helo ayaa masixitaanka salaada uu ku tukada aanu kusoo celinay saddexdaasi hadday midkood maqan yahay masixitaanka uu nabarka daboolan dushiisa masaxay ama kabniinka dushiisa uu masaxay salaada uu ku tukado waa kusoo celinayaa bay leeyihin waaya walaakin hase yeeshee yajibu ama yuciidu salaaddii waa kusoo celinayaa manka jacala yeelay lusuuqan wax nabarka lagu dhajiyo calaa cudwi tayamumin gebagabaysi xubintii oo wejigii ama gacmiya hadduu nabaru ku yaallo wejiga ama gacmaha uu ku yaallo oo dabeetana nabarkii la daboolo kabniin lagu daboolo ama baandhays saynu sheegnay inta bad qabtaa la maydhaya inta bugtana waa loo gebagabaysanaya jabiirada dusheedana waa la masaxaya masxigaasi oo loola qastiyayo inta bad qabta ee daboolan salaadaana lagu soo celin maayo haddii shaygaa la duldhigay xubintu iyadoo daahira intii markaa bugtayna aan la dhaafin waxay daruura keentay mooyaane xubintuna xubin gebagabaysi aanay ahayn laakiin haddiina calaa tahaara lagu dhigin ama intii loo baahnaa la dhaafiyey ama xubinta wax la duldhigaba ay tay xubintii gebagabaysiga laftiisa waa lagu soo celinaya oo xubintu hadday xubintii gebagabaysiga tahay oo intii bad qabtay la maydhay lana gebagabaystay shaygii nabarka dulaya la masaxay maxaa salaada loogu soo celinaya waxaa loogu soo celinayaa bedelkii iyo mubadel minhugii labadiiba nuqsaan baa ku jirta weysadii dee ma dhamaystirna oo meeshan jaban ama nabaru ku yaalle daboolan dee lama maydhin weysadii nuqsaantaasa ku jirta gebagabaysigo weysada bedelka ayna ma dhamaystirna ila xubintii gebagabaysigee la masixi lahaa ayaa nabarkan daboolan ama jabniinkan la kabay uu ku yaalla laakiin ibnu xajar oo kale wuxuu rajaxay fi tuxfa xubnaha gebagabaysiga iyo xubnaha kale inay isku mid yihiin oo haddii markaa nabar daboolani uu ku yaallo oo tahaaro markaa lagu daboolay intii loo baahnaana aan la dhaafin inaan salaada lagu soo celinahayn sidaa lagu tukaday waana sida agarku ictimaadeen ayuu yidhi yani agaru shaaficiya oo sidaan halkan kitaabka inoogu taalla isagu waa khilaafa tuxfatulmuxtaajkaad ka eegi doonta wuxuu yihi wakhayir door geli junuub mid jinaabaysan an yuqadima inuu horeysiiyo algasla maydhista aw yuqadima ama inuu horeysiiyo ataymu gebagabaysiga oo qofkii markaa nabar daboolani ku yaalay ee maydhasha ay ku waajibtay maydhista inta bad qabta uu maydhayo iyo gebagabaysiga uu nabarkaa u gebagabaysanayo kuu doono ayuu horeysiin karaa waayo dee gusliga
tartiib waajiba ma laha qusligu meesha la doono ayaa laga bilaabi karaa oo qofka janaaboobay ama meesha ku waajibtay jirkiisa oo dhami xubin quru ka dhigan yahay walihaada buu uri wa junuban wa khayr dooransi junuban mid janaabo qaba khayru dooransi ay yuqadima inuu horeysiyo alghasla maydhista inta bad qabta aw yuqadima inuu horeysiyo tayamuma gabagabaysiga inuu horeysiyo maca masx aljamiira bilmaa walyatayammam ha gebagabaysto muxdithun mid weyse jabsani id gasala waktigii uu maydhi lahaa caliilahu xubintaa bugta uma kamala deetana waa dhamaystiraya alwuduua weysada weysada tartiib baa loo shardiyaa markaa gebagabaysigii weysaduu dhex gelaya oo xubintaa bugta markii uu maydhi lahaa marka la gaadho ayuu u gebagabaysanaya kadibna xubnihii ka dambeeyey badqay u maydhaya tusaale ahaan lugta ayuu nabar daboolani kaga yaala ama jabniin kabani wejigiiba horta soo maydhaya labada gacmood buu maydhaya madaxuu masaxaya halkaa marka la gaadho ayaa lugtii uu u gebagabaysanaya jabiiradii ama baandhayskii saaraana dusha uu ka masaxaya labadaa kuu doono horeysiin karaa gebagabaysiga uu nabarka u gebagabaysanaya masixitaanka waxa dul saaran uu masaxayo kuu doono horeysiin karaa laakiin xubintaa dhaafi maayo ilaa uu dhamaystiro waxay u baahantaho gaslan wa tayamuman wa masxan dhaafi maayo mid kale uga gudbi maayo solaan gacantuu ka jabayo kabniin baa saaran wejiguu maydhaya gacanta inta bad qabtuu maydhaya gacanta inta nabaru ku yaallo u gebagabaysanaya waxa gacanta dul saaranna dushu ka masaxaya intaa dabadeed buu lugaha u gudbaya marka ilaa xubintaa hawsheeda u dhamaystiro maydhis gebagabaysi iyo masixitaan waxa weeyaan ka gudbi maayo ka tallaabi maayo saddexdaana xubinta kuu doonu ku horeysiinaya maydhista inteeda bad qabta gebagabaysiga inteeda bugta loo gebagabaysanayo masixitaanka waxaa dul yaalo la masaxayo weliba inuu gebagabaysiga horeysiyaa fiican si maydhistu ciiddii iyo wixii ay uga biiso wuxuu ihi fain yurid hadduu doono haddaba min bacdihi gebagabaysigaa dabadii fardan yani faralka uu ku tukada gebagabaysigaa dabadii fardan faral hadduu doono aakhare kale wamaa axdaa xaal maa axdatha aanu weyse jabin labada faral dhexdooda falyusalli ha tukado in tayamama hadduu gebagabaystay yani faralkaa hore dabadii hadduu gebagabaystay oo can xadain weyse jab uu ka gebagabaystay oo can janaabati ama janaaba u ka gebagabaystay waqiila waxaa la yihi yuciidu waa soo celinaya muxdithun mid weyse jabay limaa shaygii bacda alcaliili inta bugta meesha bugta ka dambeeya meedhistiisu kusoo celinaya masaladan waxa weeye qofkii gebagabaystay ee gebagabaysigaa faral ku tukaday yaani intii bad qabtay buu maydhay intii bugtayna uu u gebagabaystay gebagabaysigaasuu faral ku tukaday faral kale ayuu doonaya inuu tukado mana weyse jabin weysadaa hore ee gebagabaysigu la socday kamay jabin wuxuu leeyahay weysadii ku soo celin maayo waayo dee dahaaradii biyaa ku dahaaro qaatay inta farala uu doono iyada ku tukan karaya sooma waana baaqi oo dee may jabin laakiin wuxuu ku tukan karaa faral kale hadduu gebagabaysiga kusoo celiyey isaga gebagabaysiga mar hadduu faral ku tukaday weysa ha la socota ama yaanay la socon oo kelidii ha noqdee faral labaad kuma tukan kara bay leeyihin marka hadduu gebagabaysiga kusoo celiyo inbuu faral labaad tukan karaa almuhim qofka weysadiisu waxay isugu jirtaa maydhis iyo gebagabaysi
faral buu ku tukaday may jabin faral labaad buu doonayaa inuu ku tukado weysadii iyo gabagabaysigii buu kusoo wada celinaya maya weysadii kusoo celin maayo ile may jabine inta faral la doonana waa lagu tukan karaa laakiin gabagabaysigii waa inuu kusoo celiyo hadduu gabagabaysigii kusoo celiyayoo uu xadath ka gabagabaystay ama janaabo ka gabagabaystay markaas ayuu faral labaad ku tukan karaa لأن التيمم يجب لكل صلاة markuu leeyahay inta yamama hadduu gabagabaystay marka hore inta hadduu gabagabaystay waxaan xadath inuu ka gabagabaystay waxaan janaabah inuu ka gabagabaystay يعني سواء كان التيمم عن حدث أو عن جنابة wuxuu ka gabagabaystay marka hore xadath ha noqde ama janaaba ha noqde waa faral labaad waa ku tukan karaa mar hadduu faralka labaad u gabagabaystay oo gabagabaysigii ugu soo celiyey qiil baa wuxuu leeyahay maya maydhistana lafteeda waa ku soo celinayaa inta ka dambaysa xubinta bugta hadday tusaale ahaan gacanta bidix bugtay lugaha maydhistoodiibuu ku soo celinaya siduu gabagabaysiga ugu soo celinayo fain yurid hadduu doono min bacdihi faralkaa hore uu gabagabaysiga u tukaday dabadii fardan faral inuu tukado aakhare kale waxaal buu doonay faral kale inuu tukado ma axdatha aanu weyse jabin falyusalli ha tukado faralkaa labaad oo ha ku tukado weysadaa hore in tayamama hadduu gabagabaysiga ku soo celiyey sawaaun waxa isku mid ah tayamama marka hore ka gabagabaysaya can xadathin xadath weyse jab aw can janaabatin ama janaabo ka gabagabaysaya waqiila waxa hi yuciidu waa soo celinaya muxdithu mid weyse jabay lima bacda alcaliili in ka buka inta ka dambaysa meedhisteedu kusoo celinayaa baa la yidhi halkana wuxuu kaga hadlayaa faaqidu tahuureynka la idhaa biyo uu ku daaharo qaatiyo ciid uu ku gabagabaysto labada midnaba ma hayo waa waayey labadaba wuxuu uhi waa mankii faqada waaye limaain biyo wa turaabin ciid salla waa tukanayaa alfarda faralka oo qura ayuu tukanayaa oo faralka inuu tukada waajib bay ku tahy xurmada waktiga ilaa la ilaalinaya awgeed faralkana waxaa looga jeedaa faralka waktigaas farallo kale ma tukan karo sida miduu ku nadray iyo mid qalaa iyo ma tukan karo farallo kale fardul wakti baa looga jeeda uma intaa dabadeed mahmaa wajada hadduu helo fardan mid min dayni labadan ka mida labadee dee ciidda iyo biyaha xayثu meel uu ka helo yasquط uu dhacayo alqadaau qalluhu bihi gebagabaysiga uu ku dhacayo fatajdiidun qallayn salaadaa qalleeyo ayaa furida la faral yahay caleyh isaga lagu faral yahay markaa qofku haddii uu waayo biyo uu ku weysaysto iyo ciid uu ku gebagabaysto waxaa lagu xidhay meel aan labadaa midna aanu oolin ama ciid qoyan buu helay ciid qoyanoo bilaa boodhiina gebagabaysi ma gasho muxuu yeelayaa salaadda miyuu iska daynayaa maya salaadda iyada waa awoodaa hadduu tahaaradii awoodi waayey salaadda waa awoodaa wuxuu awoodaana ka dhici maayo waxaanu awoodin awgi almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qofka wax u sahlaani wax ku adkaaday daraaddii ugama dhaco marka horta salaaddii waa tukanaya lakin faral unbuu tukanaya sunayaal ma tukanayo faralku tukanayaana waa fardul wakti saynu sheegnay waktigaa la joogo faralkiisa farallada kale xaaraan bay ka yihin illa waa bilaa dahaare kuwa uu ku nadray iyo kuwa qalaa iyo waxaaso dham xaaraan bay sunayaal o dhamina xaaraan bay ka yihin mar haddii uu yahay faaqidu tahuureyn fardul wakti buu tukanaya lixurmati lwaqti waktiga xurmadiisa ilaalina awgeed buu tukanaya haddaba hadduu labada midkood helo faralkii uu dahaaro la-aanta ku tukaday inuu ku soo celiyaa waajib ma tahy
wuxuu yihi uma mahma wajada hadduu helo fardan mid oo min dayni labadan ka mida biyaha ama ciidda xayثu meeluu ka helo ciiddii yasqutu uu dhacayo horta hadduu biyo helo salaadii uu tukaday isagoo bilaa dahaaro iyada waa kusoo celinaya taas iyadu bilaa ishkaal iyo bilaa khilaaf marka hadduu ciid helaa laga hadlaya isagoo gebagabaysan weysaysan buu salaad fara la tukaday xurmada waktiga isagoo ilaalinaya hadduu ciid helo ma ku gebagabaysanayo salaaddii ma qalaynaya maya waxaa la eegayaa meesha uu ciidda ka helay miyay tahay meel biyo ay u qaalib yihiin mise waa meel aanay biyo u qaalib ahayn meeshaasi hadday tahay meel ay biyo u qaalib yihiin meeshaa ciidda uu ka helay waxba salaaddii kusoo celin maayo waayo kolleyba gebagabaysiga xataa hadduu ku tukado inuu kusoo celiyo way sugaysa kusoo celintani ka ridi mayso haddii meeshaas ay tahay meel aanay biyo u qaalib ahayna wuu gebagabaysanayaa gebagabaysigaasuu ku tukanaya salaaddii uu marka hore isagoo bilaa dahaara tukaday waayo dee gebagabaysigaa way kaga dhacaysaa faa'idu leeyihi haddii kalese faa'iida male walihaada wuxuu yihi xayثu meel yasqutu uu dhacayo alqadaa qalluhu bihi ay bituraabi gebagabaysiga cidda lagu gebagaysto ku dhacayo fatajdiidun cusboonaysiin baa furida la faral caleyh dushiisa lagu faral yeelay macanaa qalayn salaada u qaleeyo ayaa lagu faral yeelay waaye baab lxayd ala wuxuu kaga hadlayaa xaydkii axkaamtiisi in kooban oo kamid a xaydku waa dhiig abuurka ka dhasha oo raximka halka u shiraysa ka soo baxa si caafimaad qaban u soo baxa istixaadadu iyadu waa damu cilatin waa dhiig xanuun iyo cila ay keento dhabar furanku oo raximka halka u shiraysa ka soo baxa nifaasna baabka waa lagu sheegi doonaaye waa damu lkhaariji caqbi alwilaada waa dhiigga soo baxa dhalmada dabadeed wuxuu ihi imkaanu xaydka suurtowgiisu min bacdi 9 9 sanadood dhammaadkood dabadeed buu ahaaday gabadhu inay xayddaa waxay suurtowdaan markay 9 sanadood u dhammaadaan ama 9kii sanadood waxaa ka harhsan wakti aan qaadi karin xayd iyo duhri aan qaadi karin 15 maalmood iyo ka yar baa 9kii sanadood uga harhsan waxay la mid tuntii ay 9ka sanadood u dhammaadeen haddii 9 sanadood aanay u dhammaan oo ay dhiig aragto dhiiggaasi xayd maaha bay leeyihin calaamadii xaydkao dhan ha lahaade waa damu fasaad arrintana daliil ma sheegine istiqraa un bay ku dhisantay iyo tatabuc waa xaalka dumarka markii loo kuur galay baa la ogaaday 9 jir hortii inaanay xaydin wala aqalu inta u yar waktiga xaydkana xayd uu socdaa yowman waa maalin iyo waleylatun habeen macnaa habeen iyo maalin in la qadaraa looga jeeda oo xidhiidhsan 24 saacadood xidhiidhsan in looma jeedo habeen bilaabma oo dhammaada maalin bilaabma oo dhammaada looma jeedo ilaa xaydku gabadha wuxuu iman karaa maalinka dhexdiisa ama habeenka dhexdiisa uu iman karaa marka saacadda 12 duhurnimo u yimi haddii xaydka uu socdo ilaa laga gaadhayo waxa weeyaan 24 saacadood dhammaadkood ilaa laga gaadhayo oo 12 duhurnimo kale ilaa laga gaadhayo waa xayd haddii intaa horteed uu ka go-ana xayd maaha bay leeyihin tanna tatabuc iyo istiqraa un bay ku dhisantah marka yowm waleyla qadru yowmin waleylatin baa loo jeeda wala aqalu ay waa aqalu zaman waqtigiisa u yara u socdaana qadru yowmin waleylatin weeye waa habeen iyo maalin in la qadaro 24 saacadood oo mutasila si xidhiidha u socdo wa akharu lajali muddada u badan ee xayd uu socdaana 5 waa 5 ilaa 10 ay maca 10 toban la socoto waa 15 walgaalibu intuu u badan yahayna 6 waa 6 maalmood wa ilaa haddii kalena 7 waa 7 7daasoo tuqaaribu taqriiban dhadhoweyn ahaana
marka halkan wuxuu sheegay waqtiga ay suurtoodo gabadhu inay xayddo oo markay 9 sanadood u dhamaadaan buu ama 9kii sanadood uga harsan yahay waqti aan xayd iyo tuhri aan wada qaadi karin 15 maalmood iyo wax ka yar baa uga harsan 15 maalmood xayd iyo tuhri ma wada qaadi karto wixii ka yarina ka sii daran haddii waqtigeedoon gaadhin dhiigu yimaadana waa damu fasaad waa dhiig xanuun keenay oo salaad iyo soom iyo midna uga tegi mayso gabar daahir oo kale weeye muddada u yare dhiigu hadduu socdo uu xayd noqonayaana waa habeen iyo maalin qadarkood 24 saacadood waa muttasil oo xidhiidhsan hadduu intaa ka yaraado waa damu fasaad dhiig xayd maaha muddada u badana xayd uu socdaana waa 15 maalmood 5 ilaa 10 ay maca 10 hadduu intaa ka bato maaha waxa weeyaan damu xaydin waa istixaad iyo dhabar furan buu noqonaya inta u qaalibka ah xaydka dumarku u badan yahayna waa 6 maalmood ama 7 yaani taqriiban waxa looga jeedaa 7du xad go'an maaha iyo 6 waa dhaafi karaa dee qaalibku waa dhaafi karaa maalin iyo waxa waa dhaafi karaa waay imkaanu xaydka suurtagalnimadiisu min bacdi 9 sanadood dabadood bay ahaatay min bacdi istikmaali 9 wala aqalu ay wa aqalu zamanihi waqtigiisa u yarna yawm wa laylatun qadru yawm wa laylatun wi habeenay maalin qadarku wa aktharu al-ajali muddadiisa u badana u socdaana 5 wa 5 ila 10 ay maca 10 macna 10 ay la socdaan wal ghaalibu muddada gaalibka u ah xaydka dumarku u badan yahayna 6 waa 6 maalmood oo ilaa hadii kala 7 waa 7 tuqaarib way taqriiban dhaweynaana halkana nifaaska uu kaga hadlaya waa dhiigga dhalma dabadeed yimaada adna nifaas inta u yari laxdatu waa ilbiriqsi dhiigga gabadha ka socda adna ay aqallu 60 lixdana aqsaahu wa muddadiisa u dheera nifaas uu socdo والغالب intuu u badan yahayna 40 waa 40 maalmood in cabara haduu ka talaabo al akthar muddada u badan in cabara al madkuur oo xaydka ama nifaasku al akthar muddadiisa u badan haduu ka talaabo oo istadaama uu daa'imo dhiiga aktharu al ajal dhaafay muddadii u badnayd dhaafay فمستحاضة وين قبضها سمي دبر فرن له فهي يد مستحاضة وين حوت وين كوبت مستحاضة وأقسام قيمة نسخ غير كودنا أحكاما وأحكام بدن بيلاذي ومطولات كويا القيمة بدن ويلاذي قبل دبر فرن كلي وحيري نفاسك وديجا مركز المضعة وقت جي سوية رواء البرقس أنا دبع ديجا هذا كسر دعوة مجنا وين هذا دفع ديجا هالمركز صباح مركز ومشي كدي والنفاس مركز أنت هذا هدوء قاد ده وين مرتين أفرت نسكت سكت معها صدق مركز إن بدنا من سيين فرتم ده واحد سوق يساعدوه السعودية ديجو لكن هذه مالنتي كوبات بقى وكجواي وين مرتوا قبر دايرة صلاة داير تكتو وأحكامتي قبر داير كأيالته muddada u badan dhiigga nifaasku u socdaana waa 60 buuri 60 ba aqsaaw muddadiisa u badana 60 maalmood habeenoodu la socdaan inta u qaalibkiina waa 40 sida xadiidka Ummu Salama ku tiri oo qaalibu nisaa 40 cisho ka socda dumarka badankooda 40 maalmood iyo habeenadooda haddaba ka la soo sheegay oo xaydka ah hadii uu muddo dhaafo ومدتي u badneed u dhaafo wakadalika nifaasku mudadiisi u badneed haduu dhaafo oo sidaa ku sii socdo ku daayimo gabadhaasi waa gabadh dhabar furan la weey ahkaam gooniya ayaanay leedahay oo taxaydena la xukumaha tan nifaastena la xukumaha xukma oo xukmu taahira gabadha taahirka bay la xukumtay xaqi salaada iyo soomka iyo tawaafka iyo muaamaladii ninkeedii waxa soo dhan
marka aktharul xaydku muxuu ahaa 15 maalmood haddii xaydkii 15 maalmood ka badan gabadha uu ka socdo 15 wixii ka badani xayd ma aha ha iskaba socdabe waa inay maydhato oo salaadii ay tukato oo ay soomto waa kada dhiiggii dhalmadu hadduu 60 dhaafo oo sidaa uu ku sii socdo 60 ka wax maalmood iyo habeenada waxa ka dambeeya dhiig dhalmo ma waa dhiig dhabar furan oo dhiig cilla ay keentay oo gabadha uu ku dhacaana gabadha daa'irka ayay la xukumtahay axkaam badanna waa leedo insha Allah minhaajkiiba baynu ugu tagi doonaa lam yanxasir kuma koobna lam yanxasir ma koobmindhe akthar waqti tuhri waqtiga ay gabadhu daahir ahaato intiisa u badan xay daahir intay ka ahaato gabadha waqtiga ay gabadhu xay daahir ka ahaato intiisa u badani xad ma leh ولا حد لأكثر الحيض حيض كأنتي صوبضاني حد ما لها طهري قالوا كذا عفوا لا حد لأكثر الطهر طهري كأنتي صوبضاني حد ما لها يعني وقت صوبضاني قبل وحيد كم قران كره وعليه كرت عمري جاي ده هل مر حيض أنت كان طهري كتير أما السنة كيني هل مر حيض واحد كروي أما أقله وقت قبل الضائرة أنت سوي رمياه فنصف شهر وهي وقت قبل الضائرة أنت سوي روا بالبركة بالكاملة الوجه والصدرة كواشان يتمن عشو أي وغيران قبل الظاهر نقطة بين الحيضتين لماذا حيض نحيض وغيران وما دعي كرتلا بحيض شرية طبعا مع الموت كيرين يود حيصو ما دعي كرت وأقل طهر ونصف شهر هل كان نوعك قال لي يا حملك يا أحكامتي سوى أحكامي ثم أقل الحمل بوري إلما أنتو علول كتيري كرو أنت وياري 6 أشهر أي 6 أشهر واللح بلوط و4 الأعوام أفر سنواتنا أقصى الأكثري أنت أبداني وكتيري كرو إلما علول وأنت ودير وثلث عام سنة صدح ميلود لو قيبيه ميشي غاية تصوري صورة انت الله يالو هالكا ودن بيسوي وغالب الكامل المها دميسك تيران انت وغالب كاي علولو كتيرانا 9 أشهر 9 بلود وي واي مدد أوير ilma dhamaysi uu ku dhalan karaa waa 6 bilood iyo waxa la xadataan 2 ilbiriqsigu ku calool galay iyo ilbiriqsigu ku dhashay marka naadimku ma sheegin laakiin waa iska macluum weey in labada ilbiriqsina ay shardiyiin oo 6 bilood oo quraadu ku dhasho 2 ilbiriqsi aanay dheerayn ninka gabadha loo ilmaha loogu baabtirinayo oo markay kulmeen marka laga soo bilaabo 6 bilood iyo 2 ilbiriqsi markay ka soo wareegeen hadduu ilmo ku dhasho oo gabadhiisa ay ku dhashay ama adoontiis isaga ilmaha loogu abtirinaya muddada ka yar marka laga soo bilaabo markii ay kulmeen muddada ka yar haddii ilmo ku dhashana ilmaha isaga loogu abtirin maayo gabadh baa ninkii loo meeriyey maalintii loo meeriyey ee kulankoodu uu suurtoobay marka laga soo bilaabo 5 bilood markii ay dhammaadeen bay ilmo dhashay ilmaha isagu male qat'an wa yaqinan inuu iska qarsadana ma dhawaan waa iskaga qaadanaya gabadhan asturaya ahkaam baa ka dhalanaysa nasabkii abtirsiinta muddada u badan ilma calool ku jiraan waa 4 sanadood ilma aan quban baa loo jeedaa oo sidiisa iskaga jira imaam malik waa kii lahaa maxamed ibn ajlan isaga iyo xaaskiisuba waa dad wanaagsan oo looga qaateena 12 sanadood bay 3 ilmood ku dhashay yaana mid walba 4 sanadood bay caloosha ku siday rag iyagoo ilkalo qoslay soo dhashay waa jiraan sanado badan xagga caloosha ku soo qaatay yaa mu qoolmin mu qoolmin waa wax laakiin naadira oo yar la arko inta badan ma dhacdo waay inta ilmuhu ku sawirmo ee suura bani aadam ku yeeshaana ee u dheerina
وأفر بلود وي ثلث عام سنة مركز صدح من الله قيب يمال وسد حديث كي ابن مسعود كسو قال الساحين كوي هالي الماء دمايس كتيران waxa u qaaliba 9 bilood oo dadka badankoodu caloosha 9 bilood bay ku jiraan طيب marka 6 bilood waxa u dilada wad garanaysan xamluhu wa fisaluhu 30 shahran inta caloosha ku sidee inta nuujinaysa baa la yiri waa 30 bilood 24 bilood oo nuujinta marka laga jaro soo 6 bilood uu xamligu soo hari maayaan taasi saxaabadu u diriishadeen thumma aqallu al-hamli buri على العلم أنت كتير أنت ويا 6 أشهر أي 6 أشهر 6 بلودوي و4 الأعوام أفر سنواتنا أقصى أكثر أنت أبدا على الكتير وي وثلث عام سنة صدح ميلاد لو قيبيين ماشي غاية التصور صورة ويالك الصورة الله يهلو هلك قدام بيسوي وغالب الكامل الماء دما اسكتران انت وغالب كاي علول كجرا 9 اشهر 9 bilood way halka wuxuu kaga hadlay in dul marinaayo waa dhowr beeyde waxyaabaha marka xadadka waysa jabka sababtii u xaaraantimada xarim xaaraantimee oo xukum inuu xaaraan yahay bil xadathi waysa jab sababtii as-salaad salaad xaaraantimee oo qofka waysa jabsan salaadu xaaraan bay ka tahay faaqidu tahuurayn kun baa laga soo reebay waxa kale oo waxyaabaha salaada tawaabicda oo baa la xukuma sida khudbatul jumuca iyo sujuudi shukri iyo sujuudi tilaawada iyo maca tatawuf iyadoo la qabo tawaaf oo tawaaf oo dhan xaraan bukay rasuulku waa bimanzilati salaam salaadu la darajay tawaaf walil baaligh haml al mushaf wa harrim xaaraantimi ala al baaligh ka qaan gaaray حمل المصحف كحارنتمه مصحف كقادستيس يعني بالحدث حدث كسببتي ومسه تابشدي سنه كحارنتمه رغفك محدث كافر تاسا حارانك صلاه طوافك حمل المصحف قادست مصحف يمسه تابشديس لكن حمل المصحف مصحف كقادستيس هي تابشديس waxay xaraan ka yihiin qofka waysa jabsan haduu qaan gaariyahay haddaanu qaangaar ahayn xaaraan kama aha qeyd bay taa lafteedu sii leedahay oo kaan qaangaarhkahay waxaanay arrintaasi xaaraan ka ahayn hadduu u baahdo barasho iyo ugu baahdo oo kaan qaangaarhka ahayn haddaanu barasho aan ugu baahnayn musxafka taabashadiisa iyo qaadistiisaba waa laga celinaya ومع ذي الأربع ومع ذي تنمعيد الأربعة أفرتها حرم حارانتمه على الجنوب قفك جنابه القبي اقتراء بعض آية بركيد أخرين تيد كحارانتمه وقفك جنوب كافر طاور حاران بكين لبك الله قد دري يسجل لحبة حارانك لبد الله قد دري وقراءة بعض وآية بركيدين وآخرين آية لما يستران يكسي بدنا هو حاران قراءة شيء من القرآن بالوجه قصد أي قاسدا حالة وياهي مد قراءة قرآن قستي وآيات هدو أخريو وآنو قرآن أخرين قستين الدعاء وقا قستيو أما الذكر وقا قستيو أما وحبان وقا قستين وإسكا أخريون أخرين تاسمركا حاران كماها ولبث مسجد حرم حاران تماه لبث مسجد مساجد نقاشي لمسلم على مسلم كحاران تماه جنوبا وارين طلبات لحكو نقونيسا وحا حاران كا جنوبك marka gaalki isaga maya oo gaalku isagoo junub masaadka waa iska joogi kara Sumaama ibn Uthal oo gaalaba nabiga waa ku xidhay gaalana janaaba kama maydaan وبالمحيض وحرم حارانتما بالمحيض حيض كسببتي والنفاس النفاس كسببتي الستة لحدة جنوب كحارانتك صلاة دي ضوافكي طابشة المصحف قادستيسي أخرين وح قرآن كم ذا كنا جانشاه مساجد لحدة كحارانتما قبل حيض كلام النفاس كله وقد ضروا مع التمتع يضل لقبه راحيسي برؤية
aragti lagu raaxaystiyo walamsi taabasho bayna suratin la eego ama la taabto xundhurta iyo warukbatin iyo jilbka inta udhaxaysa ru'yada shahwadu la socotaa looga jeeda eegis iyo taabasho ku dhacda xundhurteeda iyo jilibkeeda inta udhaxaysa marka ru'yadu waa muctamad maaha muctamadku waa taabashada un hadduu eego oo bishahwatin uu ku eego xaaraan kama aha laakiin inuu taabto oo bishahwatin uu ku taabto ayaa xaaraana wayastamiru waa soconayaa taxriimu maa dukir kuwaa la sheegay xaaraantinimadoodu ila iqtisaal ilaa meydhasho laga gaadhayo aw badiili ama meydhashada waxa bedelka oo gebagabaysiya laga gaadhayo intaa la sheegay oo dhan oo gabadhii xaydka ama nifaaska lahayd intaa hore loo soo sheegay 6 junubka xaaraanta ka ah iyo taabashada bayna sura wa rukbati laga taabto ee laga mubaashareeya xaaraan bay ka noqonayaan ilaa ay ka meydhanayso ama meydhashada bedelkeeda ay ka samaynayso gebagabaysiga yamtanicu midaan la ogolayn buu noqonayaa soomkii wa talaaqu furniinkiina xataa yanqatic ilaa uu go-ayo dhiigu labadan iyaga meydhasho shardiga maaha dhiigu inuu go-ayo baa shardiga gabadha xayd kale ama nifaas kale waxaa xaaraanta ka ay markaa waa 2 qaybood qayb xaaraan ka noqonaya ilaa ay meydhanayso iyo qayb xaaraan ka noqonaysa ilaa dhiigu ka go-ayo furniinkeedu waa xaaraan gabadha xayd kale ama nifaas kale ilaa uu dhiigu ka go-ayo mar hadduu dhiigu ka goyaana meedhanbe furniinkeedu waa banaanaanaya saasoo kale soomku mar hadduu dhiigu ka go-o waajib buu ku noqonayaa waagoon barin hadduu dhiigu ka go-o waajib buu soom ku noqonayaana meedhanbe marka gabadhii xaydka lahayd imisa xaaraan ka ah waa 9 9 naadimku wuxuu sheegay 9 6dii junubka xaaraanta ka ahaa waxaad ugu dartaa lamsiga ru'yada iyo lamsiga oo isku mid ah oo ru'yada iyo lamsigu magaca istimtaac bay wada qaadanayaan cinda naadimi wa cinda man qaala bihi naadimka iyo cidda qowlan ku tagtayba marka maxay ku noqonayaan 7 ku noqonayaan 6dii junubka xaaraanta ka ahaa soomkuna waa ku 8 talaaquna waa ku 9 mid tobnaad baa lagu daraya gabadha xayd kale xaaraanka waa tuhru biniyati ta'abbud inay meedhato iyadoo niyada ku meedhanaysa ay tahay meedhasho ay ku cibaadaysanayso oo meedhasho gabadhu ay ku cibaadaysanaysaa ka ansixi mayso iyadoo xayd laba nifaas marka haddii ay biniyati ta'abbud niyo cibaadaysa hadday ku meedhato meedhashadeedaasi waa xaaraan waayo waa ciyaar ay ku ciyaarayso cibaadadii cibaadada in lagu ciyaaraana ma banaana waxaa laga soo reebayaa haddii ay gabadhaasi ixraamato ama ay ixraamanayso lilixraam way u meydhan kartaa iyo waxyaabihii kale xajka ku dhex jiray alwuquuf bicarafa iyo ramyi ljamaraat iyo way u meydhan kartaa iyadu ifcali maa yafcalu lxaaj gayra an laa tatuufi bilbeyt buu nebigu caaisha ku uri markay xaydday qofka xajiye wuxuu samayn o dhan samee laakiin kacbadaa ku dawaafina iska ilaali wuxuu yihi xarim xaaraantimee bilxadai xada sababtii asalaata salaadii xaaraantimee maca taawufin awaafna iyadoo lala qabo isna xaaraantimee walilbaaligi waxarim xaaraantimee cala lbaaligi kii baaliga ahaa bilxadai xada sababtii xamla lmusxafi musxafka qaadiisi ka xaaraantimee oo masow taabashadiisa wamaca dii tan maceed tan alarbacati 4 xarim xaaraantimee liljunubi ee cala ljunubi kii janaabada qabay iqtiraa bacdi aayatin aayad barhkeed inuu akhriya ka xaaraantimee qasdan ay qaasidan xaalo iyo mid u qastiyey qiraa'at alqur'aan u qastiyey ama alqiraa'ata u qastiyey wa lubtha masjidin masaajid nagaanshihii xaaraantimee limuslimin calaa muslimin ka xaaraantimee junubina wa xarim xaaraantimee bilmaxiidi xaydka sababtii wanifaasi nifaaska sababtii 6 junubka xaaraanta ka maca tamatucin iyadoo lala qabo raaxaysi biru'yatin eegmo gabadhaa la eego lagu raaxaysto walamsi taabasho lagu raaxaysto bayna suratin laga taabto xundhur iyo warukbatin jilib inta udhaxaysa wayastamiru waa joogayaa taxriimu maa dukir
kuwa la sheegay xaydkiiyo nufasada xaaraanka xaaraanimadooda ila ikhtisaal meedhasho laga gaadhay aw badiilin ama meedhashada xabadalka yamtanicu xaaraan buu noqonayaa ay asawmu soobkii iyo watalaaqu furniinka cala alxayd iyo nufasa xataa yanqatic ilaa dhiig uu ka go-ay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed